بسم الله halkan waxa kaaga muuqda waa sheekhyaawi oo Soomaalidii oo idil ay daaqadaha uga daateen hadii ahaanad WhatsApp-ki hadii ahaanad Facebook-gay guud ahaan baraha bulshada oo isticmaalo oo sida gaarka asaga oo gacanta ugu hayo waliba ayagoo eedeynayaan dhaliilayaan ayagoo ku eedeynaya guurkii rasmi iyo Cabdi Fataax waliba ku eedeynayaan kala tagoodii xataa inuu asaga sabab u yahay jawaabtii uu ka bixiyay ee fariintii uu diray dadka caanka ka ah baraha bulshada ee isguursada maalmo kadibna guurkii oo idil ku soo kooba kuna yiraahda wuxuu ahaa baraangi ee fariintii uu wada u maray waxa ku saabsan guud ahaan muuqaalkaasna waa kula wadaagi doona rasmi oo dhankeeda tiri sheekhyaawi waa adeerkii dhiiqana ma gelin maxayse ku dartay waxa ku saabsan guud ahaan muuqaalkaasna waa kula wadaagi doona aaway commenti ku dhiglayaashii halkan iyo guud ahaan baraha bulshada ka qaraaban jiray haddaba dadka waxay u kala baxeen laba qaybood dadka wanaagsan marka laga soo tago dadka kala laba qaybood ayuu kala baxeen dad baraha bulshada soo fariista dhiiqeysta dadka aflagaadii haddii aanad kuwa baraha bulshada isticmaala haddii hooyinka u gafayaan haddii aabooyinka u gafayaan haddii xaasaska la qabo u gafayaan haddii ragga kale u gafayaan iyo haddii qabiilada ay u gafayaan intaba haddana markii laga soo tago dadkaas caadaystay lana yaqaano adigana aad taqaano haddana waxaa jiro saaxiibo kaliya muuqaalada daawada baraha bulshada oo idil daawada haddii aan TikTok haddii aan YouTube haddii aan Facebook muuqaal walba arkaana ayagoo afka isku haysta ay haddana comment ku dhiglayaan yihiin qof ay iska qabsanayaan way iska caynayaan kir lama dhihin كعلى مدهن أيها لما أفلقادين حدنا وحيبا كتستابا وليبا أي آدو جعلهن إن قف على قف كي موقال كيس أي داودان بلا معنى بسكع عيان بكومنتي دير أي سيغا أفلقادين ما انتسي وحانكوها يا ويل سوماليات أو كومنتي قبركو أفلقادين لباتن ساعة كميسة سووريين غير ديسي أيانا سوشيك adiguna boqolaal comment ayaad maalintii qortaa adoo moodaba inaad wax dambiye gelin wiilkaasi xageebo ku noolaa xageebo ku dhintay yuusataa cidoo u gafay waxa ku saabsan guud ahaan muuqaalkaasi digniinta watan reer comment ku dhigle halka iska soo xaadiriya maanta muuqaalka xiga ma ku nooshahay dalka Kenya hadaan wax badan idin la wadaagi jiray dad ku shaqeysta sixirka inda sarcaadka goobtaada ganacsiga kugu imaanaya inta ku taabtaan kadib lacagta qaanada kugu jirta ka qaadanaya aadeen u raadinayso dahabkaagii aad u furayso jidka aad u taagan taleefankaagii lacagtii aad haysatay siinaysid maanta sheekada sheeka ka duwan ayaa soo kortay tii hore aabay qarso qool gasha lacag laga qaatay dahab laga qaatay taleefan laga qaatay waaba ka kabsan kartaa magaalada Mombasa waxa ka soo kortay xaalad ka duwan xaaladii Nairobi isli aan idin kula wadaagi jiro reer Mombasa gaar ahaan muuqaalka dhigta u dhaadhiciyay تلفون يا كسوعي هلو واحد وينيسا حبينت الرجال هذا عدينيس أم حبينت الدمر هذا عدينيس كاجا درني مساعد كرتيس هذا جوري معنا السلام عليكم قالوا لي وعليكم السلام هذا اسكت ترادنا حبينت السيد وينيسا حبينت سمحتها إيه عدينيس الرجال هذا إيه عدينيس الدمر هذا والله ويجابا ما أنت كده حكوا سابسن جودان مغالسين كل ذاك دونا أنت هسه جودا قليل هدي ستا بقشة تقول ريسي وحنا سويش ما تقولي أنت ذيك كحسن ولا إن ما أنت بنقول صوب بيرتان channel كنا سبسكرايب إنه صارت سيدو كله وحنا سويش ما تقولي أنت ذيك كحسن يا أفضل با أو مغال كداونا يا بلينو لاكته يشات تسوي كندرتان سجودان مغال كأنه جار مش الصوماليين سوري صاحبيان ميل كستا أو ضافها عالم كات كجوكتان شيخياوي صومالي دي وإذا الأيوير قاد ولي بريه سي برشة هدي واتساب هانلت هدي فيسبوك هانلت وإبوح عافيا أيها أو كو أذن يجوركي رسمي يعد يفتح لكن سده بلف جوجلو ما أديكو جوابتي وكبحي سؤالي لقوي دي يفرنتو أديكو سده المقال كي سير داون دقيستا reer TikTok oo aad u dhageystaa dhagihiina fura laabtiina fura oo wax maqla dadka caanka dhibka ay qabaan wixii xalaasha ahaa marka la sameeyo wadaadkii loo yeero la meheriyo si qurxoon loo duceeyo wixii la rabay nicmada ahaa dad badan aanan heli karin in la qarsado ay ahayd meedii baa la keenaya khilaaf yar uu dhacaya ilkii carab baa isqooma Soomaha markii khilaaf wiilkii gabadhiisa yar gafaan waxa la rabay ilaa horta waa idin cafi
kuwa aan ii naxariisanna jir والله قبلها بفعنا هل كانت وحا ما دعينا يا حسين اوجي runtii aad buu ii difaacay wadaadka dhoobada ka daawiyay waana wanaagsan Soomaali dhamaantiin halkaan aad ka wada salaamaya fulay xantii ma mooga yani way ugu soo taagid gareeyaan ugu yaraan 100 gabdhood 100 wiil baalki Facebook way iga buuxsamay WhatsAppki ayaa iga buuxsamay laakiin waa ka aamusnaa arrinkaas laakiin inaan maanta ka hadlo waxyaabo badan aan ku darana aad baan u jeclahay kaliya anaga waxaan eed yeelanaynaa guurka shuruudihiisii haddaan ilaalin weyno Allah dhowra gabadhan gurigeedana Allah u hagaajiyay aabeed ayaa runtii la hadlay soo hadlay oo aan wilaayadii ka qaaday waana shardiga ugu weyn waay uqaashi labada reer baa halka joogay uqaashi labada reer siyaasiyiin baa joogay waa si sharciyana la isugu meheriyay waana loo duceeyay runtii ilaahina wuxuu leeyahay fankixuhunna biidni ahlihinna haddaad guursanaysan rag iyo how ku guursada ogolaanshaha ehelka annaga sideedaba ma naqaana wax qudba sare la yiraahdo mana meherine waa ka dignaa marka guurkaas runtii guur xalaal u ahaa annagana waxaan leenahay oo korkeena ah guurka shuruudihiisii iyo inaan ilaalino laakiin korkeena ma aha inaan isku sii hayno in aanan la isfurin inaan korjoog waxa soo dhan anaga korkeena ma waajibkeena waa ka soo baxnay waxa meesha marka ku dayacmay waa de xilkoodii iyo mas'uuliyadoodii taasna waxaan filayaa inaanan eed badan aanan ku yeelnayn waxaan filayaa jawaab ku filan inuu siiyo Sheekh Yaawi dadka baraha bulshada uga soo daata gaar ahaan WhatsApp-ka fariimaha Facebook in ay dhamaantood ay ka qanceen tan kale wuxuu fariin culus hawada u mariyay dadka caanka ka ah baraha bulshada noocyada kala duwan haddana guurkooda soo bandhiga isguursada maalmaha hore muuqaalo noo soo duuba kadibna yiraahda guud ahaan guurkii ay sheegaynaba waa mid baraanga iyo fariinta wada u mariyay bal muuqaalka oo dhameystiran ayro dawan reer TikTok war guurka islaamku aydan ka nabad galo oo guryaha muslimiinta aydan ka nabad galaana oo ka xishooda ilaahina ka xishooda oo culimada ka xishooda oo waalidiinta ka xishooda war guurka qudisa ka xishooda guurka baraanki ma galo guurku ku xumayn ma galo guurku masayr ma galo guurka fiis raadis ma galo war guurku waa cibaado waa aayadaha ilaahay kamida وشعائرت إسلام ككامدة آيات قرآن أديكو كعياري أيي لمتهاي مركات جورك كعيادات صدح عيشو ميلها وريكتان ميلها سلسو سيحتان أو أدكو كيلي نقطان أو أدكو وشا كيساني نادس جورستين هادو نبرانك ويا أدهدان وآية من آيات الله ووحو إلهي كعارون يواي كنا الليباني ميسان هداد جورستان كنا بركوبي ميسان وبد باريالنا كهلي ميسان ومداس هنعسينينا جوركا هدا إذا جور ربين ورئيدين كيدين جرتاي جورك ومدها هنعسينينا جورك برانكي مقالو الله إذا بديالو كحشود إلهينا كحشود علماء كحشود والدينتا ورجوريها مسلمين كحشود مدة هذا كله هدي خلاف وكوي مادو دتك أنو إسكو مهرينو دتك سحلالة إسو جورسدي هدي خلاف وكوي مادو ورخلافك تيك توك اللي مجيو تيك توك وحمحليو تيك توك شياطين الإنسي يو الجن أياه كل ما والوالدين كأديقنا أياه والله بنكون دارتي تيك توك شياطين تكجرتي أبدا شياطين الإنس إبليس كي وحا كجر آدم آبهن يحاو كسر صار جنة إسقى سوى قرية إلهي بأفدو دي وروحان فرح بدن كومنتيك بحنايم وروسعو قوة وقوة وكسرنا وروحان أدقو مع سكجرة كلها يا ورما هدد وناكسن وشياطين واي ورالسكي اليوم خلاف كرير كهلقي إلى ميديا
هلقى إلى تيك توك إلهي وحليه سبحانه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها عقاشا لبدا رير أيا خلاف كرير كلو عليا محيا لكواسا إلى لنا يقولي كواسا دوريا كواسا بدقب كرير كشقينيا ورقوركوا عبادو قوركوا بركو قوركوا مودئ الرحمة قوركوا حسلوني تيك توك أنا حسلوني متالو ودكتين ورك إلى ليا قورك كيلالية تيك توك كيلالية halka tala looma raadsado halka wanaag looma raadsado TikTok inuu wax fitneeyo ma ahane waxba isuma keenayo dadka dhax fadhiya ay dhaguhu tagtaagan yihiin wararka sugaya waad garanaysaan dad wanaagsan maaha marka Allah idin barakeeyo annaguna naga xishooda Ilaahay ka baqay naga xishooda Allah idin barakeeyo cid walba oo guurku ka xumaaday Ilaahay waxaan ka bariyay guri wanaagsan Allah siiyo intaana gursanina guri wanaagsan Allah siiyo Ilaahay waxaan ka bariyay kuwii guurka cibaado u qaata Allah inaga yeelo ubad saalix oo baariyalna Allah ina siiyo wada jirkana Allah inoo adkeeyo برانك إبلايو إفيسرادس مساير كحومين إلهي وحن كبرين وكما قال له الله ينقبض باديو وانا دي سلام يا هلا هجاجيو جوركا علماء هلا قال له حذو عفي ولا الكا muuqaalka xiga aaway commenti ku dhiglayaasha inta baraha bulshada iska soo gala qof muuqaalkiisa aqoon gaar ah aysan u lahayn muuqaalka ay daawanayaan aan ayaga loogu gafinin amba qof kale xataa loogu gafin aqbaaraad qofkan uu soo diyaari barnaamij uu soo diyaari waqtigiisa qaaliga gali hadana dadka isaga gafa iyo qof alaala qofkii arka inay xumaan qoraan mooyaane ay ku adagtahay inay wanaag qoraan saasay tahay waxaad moodaa inaysan cidna u gafin qofkaas ay caynayaan way aflagaadeynayaan hadana waxaad moodaa qofka inuusan wax dambi ah oo gelinba faraha uu ka qoray afkana waa nuuxi hadda muuqaalkan ama fariin qoraaleedkan waxa qoray wiilkan magaciisa la yiraahdo Yaxya Cabdi wuxuu ka falceliyay oo waliba kamid ahaa dadka falcelinta ka sameeyay kumanaanka kun gabadhii Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho maalin caday sida ku muuqata dhalinyaro tiradoodu badan tahay tayadoodu yar tahay waraabayaal ah damiirkii dadnimada ka dhintay haddana hal gabar oo Soomaaliyeed ku xad gudbay darfaha haysta docda haysta dhinac walba xubin walba oo gabadhii ay lahayd isaga xad gudbay ee iska qabqabsaday ee maal caday dadka hortooda dharka kaga dhigay kufsi aan wax dhaamin haddana muuqaalkaasi dadku siyaabo kala duwan ay kaga falceliyay qof walbana damiirkiisa iyo dadnimadiisu intay gaarsiisan tahay ayuu kaga falceliyay hadda waxa kamid ah dadka falcelinta aadka xun ka falceliyay wiilka lagu magacaabi jiray Ilaahay ha u naxariiste maanta dunida kuma noola waxa lagu magacaabi jiray Yaxya Cabdi commentigiisa waa ka ku muuqda wuxuu soo qoray kufsi maxaa inta soonina kufsada maxaa inta soonina dhaxgay maanta dunida kuma noola screenshot kan wuxuu yaalayba in ka yar 20 saacadood commentiga uu ka bixiyay gabadha oo waliba uu gafayo oo leeyahay kufsada inta soo raga maxaa dhaxgeeyay 20 saac gudaheedii waa mid waxa jira marka dad muuqaal walba arkaan dadka ugu gafa muuqaal walba soo geliyaan ugu gafa haddana aad mid wax dambiinaysan gelin meeqaad u gaftay maanta aan nooleen hadda adiga noosha yaa ku cafinaya marka commentiyadaadii way say qorayeen meesha hadda wiilkan Ilaahay u naxariistay dhowr iyo 10 qof ayaa commentigiisa kaga falcelis haye war afkayga qoyan ina u hadashaa ma qurux badno qofka muuqaalkiisa aad ka falcelinayso hadduu ku anfici waayo haba daawano dantaada raaco adiga xabad laguma hayo mugta bistoolada laguma hayo waqtigaaga qaaligaad gelisay qofkii waa daawatay haddaadan dhiiri geli karin ha daawan ma ku anfici maano iska bax maxaa u daawanay horta waqtigaaga maxaad u gelinay haddana aad ugu gafay oo du aflagaadeynay oo du caayne aqoon malihid halkaana ka aragtay haddii aadan ku qancin barnaamijyadiisa qofka billahi tawfiiq albaabka ka bax hana u gafin waayo qofka hadduu ku cafin waayo ku cafinayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigaad ka gasho Ilaahay ka cafin kara laakiin adoomihiisa dambiga aad ka gasho
addoonkaas bis ku cafi kara hadduu ku cafin maxaa sameynaya aakhiro halkan uu yiraahdo hadda korocay ii soo qor maxaa sameynaya dadka baraha bulshada ku jiro samir ay ku joogaan waayo dadaan aqoonin ayaa marka qaar isaga ka dhiiqaysanay saana tahay haddana waa fiirinaa waa ka soconaa waayo haddaan la kala roonaa roob madow qofka ku cay waad cayin kartaa laakiin maxaa soo kordhis waxba ma soo kordhin marka haddii aad ahayd dadka u gafa ama aflagaadeeya ama caaya maanta jaanis ay haysataa qofka haddii uuba nool yahay ood nasiibkaas leedahay ka codso inuu ku cafiyo wiilkan ilaahay ha u naxariisto waad u jeedaa geerida meel fog ma jirto sakin kasto noo imaan kartaa geeridu ilaahay ha noo naxariisto ilaahay dembigeena ha dhaafo haddii ay jirto qof aad cuqdad iyo calool xumo aad qalbigu weysane dan ilaahay isaga cafi adigana dadka ha caynin intii aad caysane kulley cafis weydiiso anigu dhankeyga cid walba waxay soo sheegtaa caawo jaanis waay cafisaati cafis iskana ilaaliya dadka inaad u gaftaan waayo meel lagu soo joogo ma taqaanin muuqaalka xiga halkii Kenya ahaydna ka daroo dibi dhal ayay maanta maraysaa haddii aad ogaan jirtay qof sixiroola ah ama qof indha sarcaad la ah ayaa goobtaada ganacsiga kugu imaan kara war hadda aad dhiri jiray guriga adkaar uga baxa war guriga weysqab uga baxa war haddii ay dadka ku yimaadaan waxaad haysatay kaa qaadanay taasaa qarso qol gasha ah maanta sheekada waxay maraysaa in lagu soo waco horto hallo meela ka kaadisaa weyne astaghfirullah lacag iyo waa la helaa war lacag waa la helaa war telefoon waa la helaa war hanti waa dahab waa la helaa maanta sheekada meeshii ugu xumeed ayay maraysaa waxa laga yaabaa in laga hor yimaadaba السلام عليكم أيها الولي وعليكم السلام ذات المشين هذه أوردن صلاح أقنعس يا بالميتكم إذا اللي رسوا مريض أي حقتهن لو ذا جي ننكلو غير من باصود بالورك كان صومالي بل بعضان يسيدوا ملو ذا جي بلا ردوان وطن كينيا أقصى المقشن مباسة مقالة مباسة الله أقصى المقشن ولو سواء نبر هذا قولنا بسرعة يا ما كان هذا يشد بعضي يا إيه أنت لا هيبة أنت ترى كلام لك عصايب ما فهمت الرجل مركز عليه نبر هذا قولنا قبلنا صاحب هذا نبر ولا سكرتك صاحب بس راح يصعد راح يا رجال كريم راح يروح يا مع واحد صاحب صاحب نبر قلت أنا دي صقل واسفر يا مر البابا ما فهمت مركز نمبر قلتنا بسوقنا حونتا لك صاحب حونتا ترى كان لك صاحب واكو دايما حاسمه وجوغان صاحب فلات دات فلات هاي اسكلا بخ تليفون الصدير ولا اسكلا بخ حد تاوشو ولا تاونا ولا اما السلام عليكم لو ده وعليكم السلام بس ولا قال تغا حونكا ترنكا اسكي ilaale isilaaliya miyo Soomaaliya ilaahu adaa weyn ilaahayu adaa weyn haddaba markaan arkay muuqaalka wiilkan oo kaga sheekeynayo inay soo kordheen rag saaxiriin ah ee haddana inta telefoon ka soo waco kule halo kadibna xubintaadii taranka la kacaya warku waa in la cadeeyaa markaan oo kale xubintaadii taranka meelaad ka kaadisa weynaysa waa la qaadanaa ayaan waxaan u korgalay bal sheekada inay dhab tahay iyo inay dhalantay tahay ninkan ku muuqda waa reer Mombasa ninkan ayaa ugu dambeyn ka xaqiijiyay inay sheekadan dhab tahay wuxuu yiri Mombasa sheekada waxay ka maraysaa assalaamu calaykum wa calaykum asalaam hadaa tiraahdana mashiintaadii oo dhanba wala la kacay cidigu salaan xageesa ka yimideen dadka heerka sicirkoodu maray bal afjooglomaadayga ugu horeen bal muuqaalkiisa aanu daawan sasa nasikia Mombasa ukisalimiwa salamu alaykum ukijibu alaykum salam mashini naenda wanakuchukua mashini yangu na alaykum salam shindwe pepe tabia gani hizi mngeleta Mombasa mngeziacha Tanzania huko yangu ukichukua kichapo ni cha mbwa kuingia msikitini nonsense hay kulli waad qanacdeen haddii assalaamu alaykum lagu yiraahdo xataa mashiintaadii waa la kacaa wa alaykum salaam hadaa tiraahdo xageen galeynaa marka
xageen gelaynaa see la isku ilaalin karaa kaliya wax walbo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faray inaan weyse qab iyo adkaar guriga kaga baxno taa waa hubanti haddii aad aaminto weyse qab iyo adkaar guriga kaga baxdo shar iyo shaydaan iyo sixiroole iyo indha sarcaadlaba intaba isma arki kartaa oo ilaah ayaa kuu ballan qaaday laakiin xaaladdu meeshii ugu xumeed ayay maraysaa jooga hala is ilaaliyo hala la taxadaro ilaahay la tala saarto xaaladdu waa cabsi aamin waa dhammaaday salaamu calaykum taxtaa shakiya keentay taleefanka hadduu qofku soo waco oo shib yiraahdo nambarkaada aqoonin halo hadhihin shib hadduu yiraahdo shib dheh adkaarta nafta ku qabso waa badbaadaysaa halo haddaad inta aad soo bixiso waa lagu yaaba ilaahna u shartiro adiguse weli ma la kulantay qof xubintiisii mashiintiisii la qaatay ee kule xageenka kaadi doona bal aragtidooda qaybta hoose gumitiga aala ku maasan dawashada muuqaalka si aad muuqaaladeen update aala oo kulanta kaliya waxa ka xigta adigoo nagu soo biira channelka hadda rukunto oo subscribe saar sidoo kale muuqaalka maxaad ku haysataan noo qorxiye oo noo la gareey oo noo share gareey si guud ahaan muuqaalka inuu gaaro bulshada Soomaaliyeed muuqaalkan mid lamid ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.